runtii in badan dhalinyarada wax noo soo dhigi jiray waan la sheekaystay waan ku dhex jiray waan arkay way la shaqeeyaan waxaan oran lahaa 4 qodob oo tala ah inaan ku soo koobo oo aan jeclaan lahaa in xoog aad u dhageysataan weliba nood garaysataan tan koowaad oo ah jaamacada la wada dhigtaa jaamacadiina manhajed dejisay manhaj u socdaa ka waxaan oran lahaa marka koowaad xoojisaan foundation waxa weeyaan aasaaski cilmigu aasaas ayuu leeyahay deetan waxba lagu dul dhisaa marka waxaan baranayso inaad programman dhigato waxa ka muhiimsan inaad xooga saarto muxuu ahaa analyticska problem solvingka waxaasoo dhan waa foundation oo mustaqbalka wax weyn kuu tari kara marka foundation inaan adkeeno oo inaan ku mashquulin waxyaabaha natiijada degdega laga helo inaan ku mashquulin tan labaadna waxa weeyaan commitment inaad maaragtay samayso iyo passion inuu jiro in aadan jaamacadda u dhigan jaamacadda la dhigtaa ama de IT-ga loo badan yahay ama de waxa laga helaa salary fiican laakiin waxaan uu passion ka noqdo commitmentna uu jiro arinta saddexaad ee aan dareemay tirada ka yara maqan tahay muhiimna ah waxa weeyaan language skills maanta teknolojiyada waxa albaabku ah waa luqadda weliba luqadda Englishka marka Englishka ku adoon ku hadli karin hadaad akhrin kartid waa muhiim waxaan xasuustaa berigan jaamacadda dhigan jiray library-gan soo galay waxbaan islaada akhrisid dhinac halkan waxa ii fadhiin Chinese oo book inta leeg akhrinay ninkii saas uu waday deetana waan la hadlay Englishan kula yara hadlay wuu fahmi waay wuu jawaab waay luqadda English si fiican uma aqoon markaan buugii eegana English ku qoray marka commitment iyo passion ayaa halka ka maqan ninkii waxa arkaysa inuu isku dayo inuu buugii English akhriyo laakiin English conversation ama chatting ma samayn karo marka taana inaad xoog saartaan luqadda Englishka maanta fursad fiican aad haysataan oo caalamku furan yahay aqoontii way furan tahay wax walba waad heli kartaa laakiin luqadda hadday barrier kugu noqoto oo aadan wixii waxba kala soo dhexbixi karin mushkil ay noqonaysaa Englishkuna accent ma aha pronunciation ma aha waxa weeyaan oo waxaan inaad akhrin karto fahmi karto marka luqadda xoogaha la saaray aan leeyahay albaabada maanta idin furan waxa weeyaan jaamacadaha caalamka ugu sareeyo MIT Stanford University waxaasoo dhan professoradoodii duruusta ay bixiyaan ayaad online ku heli kartaa marka cidba kaama xigtay waxa weeye adiga iyo commitmentkaaga iyo passionkaaga iyo skillkaaga languageka inaad wax ku heli karto qodobka u dambeeyo oo isagana muhiimka waxa weeyaan inaad maskaxdaadii xur ka dhigto ardaygu waa inuu maskax xur leh uu leeyahay oo unlock aad ku samaysaa mindsetkaaga tusaalan waxaa idinku filan ninka maanta aad looga hadla adduunka la yiriba bini aadan ma ahe waa alien waa ninkana wada garanaysan la yiraahdo Elon Musk marka wax cusub ama de wax lala yawmuu soo kordhin laakiin mindsetkiisa ayuu wuxuu ka dhigay free shirkadda NASA oo muddo dheer lagu yaqaan inay ka soo shaqayn jireen spaceshipka iyo in maaragtay spaceka la tago waxa ay samayn jireen saaruuqda marka la diro marka hore waxa ku xiran qayb loogu talagalay gravitationka dhulka ee soo jiidanaya qofka inay xoog kaga saarto si marka atmosfeerka markuu ka baxo ee xaggaas ay haabto marka halkii loogu talagalay halka ay taaganta bahalkaasi samayntiisii waxay ku kici jirtay $70 milyan ayay ku kici jirtay deetana waxay xadiday inta jeer sanadkii saaruuq la diri karo ayay xadiday waxa la diri jiray mar ama laba way halkii marba waxa kalifaysa $70 milyan ninkaana marka wuxuu yiri ma $70 milyan ayaan sidaa u qarxinaynayo badda ku daadanaysa mise waxa loo baahay aqli inaan la nimaadno deetana wuxuu ka fikiray wax la yiraahdo in rocketkaasi uu sidii uu ku dhaqaaqay ku soo noqon karo aakhirkiina uu ku guuleystay maantana waxay noqotay in NASA isaga ay ka codsaday tiraahdo sawaariqeeni adiga kaale inoo dir